Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ka hadlay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan 15 May ayaa hambalyo u diray guud ahaanba dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuuna ugu baaqay inay hormuud ka noqdaan horumarka qarannimada iyo hoggaanka dalka. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta ay tahay taariikhdu 15 May 2017 waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Maanta oo ah maalintii dhalinyarada. Waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah 70% shacabka Soomaaliyeed. Waxaan idinku hambaleynayaa kow inuu dalkiini taagan yahay waqti aad idinku gacanta ku qaban kartaan. Labo, inaad xasuusnaataan cidii soo xoreysay waddankan, cidii soo gaarsiisay ummadda Soomaaliyeed sharaftii iyo karaamada ay lahaan jirtay inay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed. Si dalkeenu ugu soo noqdo iftiinkii uu lahaan jiray, sharaftii iyo karaamadii uu lahaan jiray, waxaa loo baahan yahay mar labaad dhalinyarada Soomaaliyeed inay hormuud ka noqdaan qarannimada iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed. Waa idin hambalyeynaya mar labaad, waxaan idinku bogaadinayaa inaad maamulka iyo hoggaanka waddanka gacanta ku qabsataan, qaybna ka noqotaan horumarinta dalkiina. Waa mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sanad kasta maanta oo kale waxaa dalka Soomaaliya laga xusaa maalinta 15 May oo ah markii la aasaasay ururkii dhalinyarada ee xornimo-doonka ahaa ee SYL sanadii 1943. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil, Axmed Darwiish, warbaahinta qaranka magaalada Dooxa.